بسم الله السلام عليكم كسر المركلة كورسدنا HTML كسب سنة نسدي سمينت وبسديدا فلانها 10 كشنات ما أنت قادرنا إن هدو الله إدمو 10 كان كي شنات واي شنات qodobada aan ku qaadan doonana waxay noqon doonaan insha Allah kuwa soo socda HTML styles ayaan ku qaadanaynaa maanta sida loo qurxiyo loo qaabeeyo gaar ahaan qodobada hadda soo socdo waxaan qaadan doonaa background color sida loo bedelo page-ka background-kiisa sagxadda hoose ee page-ka text color farta midabka ay yeelanayso sida loo bedelo waxaan kaloo qaadan doonaa fonts qoraalka ay farta ay ka kooban tahay nooca uu noqonayo nooca qoraal sidoo kale waxaan qaadanaynaa text size cabirka uu ay farta yeelanayso ama qoraalka uu yeelanayo iyo sidoo kale text alignment iyo text alignment waxaa la yiraahdaa farta qoraalka dhinaca ay hegayso dhaxda bidix midig soo dhinaca loo durjinayo qodobadan aan ku qaadan doonaa marka waxaabiyaysan sharaxaadina la dheeraan qodobada intaan asaasaan ugu socon doonaa insha Allah waxaan soo shidanaynaa editorkaygu ii diyaarsan yahay waa kana waxyaabihii hore casharadii hore aan kusoo camal falnay waa iska tirtiraa okay iska wada qaado okay waxaan marka space meel waxaan u sameysanaynaa oo nadiif ah so page-ka ma aan tagno page-keena okay waxaan filaa inuu kan yahay so refresh haddaan dhaho waa inay ka baxaan libaaxa iyo meesha linkiga laga aadayo inay kuwaan baxaan rabaa magaca kaliya inuu haraan rajeynaa wakaas all done saan qorsheyna u dhacday waxaan sameynaynaa insha Allah magaca xataa haddaan ka bixina waxaan ku bedelaa cashirka aan maanta qaadanayno oo ah HTML style attribute HTML okay style attribute okay control S aan dhahay waan save gareeyay waxaan sameynaa marka reload this page ama refresh aan leeyahay okay cashirkan maanta HTML style attribute ayuu ku saabsan yahay waxaa muhiim ah marka inta aan cashirka ku jirno waxaa jiraya marka wax oo syntax-ka HTML style attribute-ka يعني شروع أما قاب قرالات كده مهم وإن معرفة سلا أرقمه so حكوكوين هاي تاجا إني فرت العرق كرار رجينا إن شاء الله سمينا هنا وحال الربائن وككوبنا ضوء اللهم صل على محمد tag name okay tag name-ka space waxaan gelinaynaa hadan style waxaan dhahaynaa marka waxay la mid tahay kadibna quotation-kii labada xaba ahaa waxa la yiraahdo property labada dhibcood dul saaran kadibna value okay qaabkaan ka koobnaan doonaa waliba calaamadaasaan ka soo hormarsiinayna kadib labadii qodob kor ku xireynaa marka waa in uu sidaan ahaada habkaan style-ka u sameyn doono waa qaabkaan haddii aan weyneeyo tag name-ka waa kan hadda meeshaan oo kale tag name-ka meeshaan hadda uu yahay kale saasaa li xagga la gelinaa kadib marka xagga la geliyo style la qoraa marka style la qoro calaamadana lagu xijinaa waxay la mid tahay ama
is ama equal kadibna quotationkii labada kore ahaa property-ga property marka waxaa laga wadaa waan arki doonaa iyo value waxa la dhaho hantida iyo qiimaheeda waxa ay yihiin ayagana tusaalahan ku arki doonaa insha Allah so tusaalahan ku arki doonaa hadda marka waxaan sameynaynaa Allahumma salli ala Muhammad background color kan hadda bedeleynaa marka background color oo page ka dhan aan bedeleynaa marka habka loo bedelaan hadda isla arkayna marka waxaan aadeynaa body-ga laga bedelaa marka body tag marka fiiri waxaan raacaynaa marka syntax-kana raacaynaa sharcigana raacaynaa qaab dhismeedkan so marka body-ga hadda waa kana open tag-giisa close tag-na waa kana so kan open ka tagaysaa oo furaynaa waxaan qoraynaa marka style markaan qorno process-kun baan raacaynaa calaamaddu waxay la mid tahay kadib process intaan ku qorno baan raacaynaa property marka waxaa la yiraahdaa hadda background property la isticmaalaynaa in background-ga rabnaa wax ka bedelno waa kana wasaab ii soo baxay background color waliba u baahanahay kana u baahanahay background color so kadib marka maxaan sameynaa calaamadii oo taasaan saaraynaa kadib midabka aan rabno inaan ka dhigo waxaan leenahay hadda powder blue oo kale intaan leenahay ma inta meelna soo aado meesheedii taagaha waa kana marka midabka waxaan ka dhiganaynaa powder blue okay process-ka value waa marka kaas midabka marka aad midabka value ku imaana property-gan waxa waa background color-ka waa so marka waxaan sameynaynaa waan xireynaa quotation-ki so control S aan leeyahay waan save gareeyay page-kan aadayna refresh aan leeyahay waxaan rabaa isbedelo bismillah is done waa biyod waaye laakiin hadda si blue tikhli aan ka dhigaa powder-kan ka saaraa midabka blue caadiga ah la yaqaan control S waan save gareeyay kaas so qaabkaas marka sagxadda hoose ee background-ga page-ka loogu bedelaa hadda haddii aan dhaho tusaale ahaan yellow kaleeto yellow ka dhigi karaa okay control S aan dhawaan save gareeyay inta imo kaas is done midabka aad rabtaa ka dhigan kartaa waxaan ka dhiganaynaa hal mar last tomato midabka yaanyada okay so marka wixii aad rabtaa ka dhigan kartaa so waa kaas marka hadda kaas hadda waan aragnay waxaan kaloo haddana aan ku xijisanaynaa text color farta qoraalka in wax laga bedelo so farta hadda madow ay noo tahay waxaan ka dhigaynaa midabka aan rabnaa ka dhiganaynaa marka farta inaan bedelno tusaale ahaan qoraalkaas wuxuu noogu jiraa HTML H1 tag la dhaho ku jiraa so marka maxaan sameynaynaa waxaan raacaynaa syntax-kii rule-kii oo qaab qoraaleedka isugu aadisnaayeen asuun baan raacaynaa so marka tag name-ka tagaynaa waan furaynaa marka waxaan leenahay style waxay la mid tahay calaamadii kore color baa qoraysaa marka color okay markaad color tiraahdid labada dhibcood aad isticmaalaysaa midab hadda maxaan ka dhiganaa blue haddaan dhaho okay xir okay control S aan leeyahay save gareynaa okay waxaan rabaa marka farti madoobeed inay isu bedesho blue aan rabaa fartaan is done iyadana way noo qabsoontay so midabka rabtaa ka dhigan kartaa yellow kale haddaan ku tijaabino yellow
waa kaasa way shaqeysa asigana. Okay, marka maxaa hadda sameyneynaa maxaan kaloo sameyneynaa fonts marka يعني waxaan hadda aan isticmaalno HTML maahan propertyada isticmaalno waxa waa CSS waay koorsadii ku xigtay waaye laakiin uu isku sii dhex jiraan taas si dhameystiran u qaadan doonaa laakiin hordhici cashirka markaan qaadanayno waxaan sheegnay inaan maaragtay wax ka taaban doono wax ka qaadan doono marka hadda waxaan qaadanaynaa qodobka xigo ku saabsan font family yani fontska nooca qoraal aan isticmaaleyno so waxaan sameynaynaa kii hadda farta ahaa kana ka bixinaynaa. Okay, stylekiisa sidiisaan ku dhaafeynaa font family aan leenahay. Okay, font family qoraalka nooca ay tahay farta nooca ay noqonaysa waay fardeen oo kale aan dhahno fardana. Okay, waxaan weli isticmaaloynaa si fiican isha ugu hay rulkan aan isticmaaloynaa ama syntaxkan. So tag nameki waa kan waan dhexgelinay style aad qoraysa attribute-ka la yiraahdo. Okay, kadib processkaas oo raacaysa waxay la mid tahay calaamadii kan marka property-ga la yiraahdo font family property-ga waxa iska leh CSS iyo value-ga hadda waxaa fardeen waay nooca qoraal la dhaho. So control S aan leeyahay farta aan arkayna marka way isbedesha midabku oo ka saarnay. So hadda farta waxaan ka dhigaynaa nooc kale aan ka dhigaynaa font family courier aan ka dhigaynaa so isbedelaan la taaban karo si aan u aragno way kaas maahan inaan taabto ma rabin fardana meesha ay tahay waxaan ku bedeleynaa courier. Okay, courier control S nooca farta waa farta qaabka ay ku soo baxayso muuqaalaha oo kana hadda noocana courier la yiraahdaa marka waa taas ayada marka qaabkaas loo bedelaa iyadoo la isticmaalayo property-ga la yiraahdo font family value-gana noocii aad markaa rabtid ka dhiganaysaa. So hadda marka waxaan ku xijinaynaa oo aan aadaynaa wax la yiraahdo text size. Okay, text color waan qaadanay fonts waan qaadanay hadda text size aan qaadanaynaa cabirka farta aan ka dhigayno. So isla meeshana aan imaano kana iska tirtirno waxaan sameynaynaa font size aan leenahay font size labada dhibcood process ku bad maraysaa 300 aan ka dhigano. Okay, font size 300 okay calaamada percentage kan raacinaynaa kadibna okay wixii kale inta kuwana wuu dhameystiran yihiin. Okay, waxaan leenahay marka hadda control S waan arkaynaa marka farta in cabirkeeda isbedela la rabaa inaad marka sida haddii aan yareynane aan fiirina idane meesha 100 meesha 300 ka taas 30 aan ka dhigana aadaan u yareynayna control S aan dhahay just isbedel la taaban karo in la bedeli karo isbedel muuqda rabna kaliya waa kaas meel fog ay aade marka 150 aan ku soo imaanayna meel dhexe 150 control S aan dhahay. So waxaan aragnaa wax kaasa marka inta aad rabtid ka dhiganaysaa font size
so marka font size waxaa la isticmaalaa property-ga nooca font size-ka la dhaho value waxa rabtaad ka dhigan kartaa attribute-ka isticmaalaysana style attribute waay so hadda waxaan isticmaalaynaa waxa la yiraahdo text alignment so qoraalka iyo farta meesha aan keenayno okay kan waan tirtireynaa hadana isla sigale text alignment waxaan isticmaalay marka attribute property la yiraahdo text align okay oo ku soo saaraba text align hadda marka waxaan leenahay center aan ka bilaabeynaa center okay control s aan dhawaan save gareeyay waan soo dejinaa qoraalka marka inuu dhaxda yimaado waa muhiimadeena isdhan waa inoo suura gashay waan aragnaa waxaan leeyahay hadda tusaale ahaan centerka meeshuu ka yahay right aan leeyahay okay midigaan dhahay waan save gareeyay control s aan dhahay haddaad iloodid makuu shaqeynaa isiguna ku iloowaa marka muhiimadda waxay tahay in hawsha aad raacdid wadadeeda okay iyadan waan aragnaa waa inoo shaqeysay so hadda left aan u celinaynaa asalkeeda meesha horaan ka keennay by default meesha ahayd left control s hadana dhahaa waan save gareeyay kadib waxaan aadaa meesheeda okay and it's done so marka taas ugu dambeysay waxaan hadda aan qaadanaynaa oo ugu dambeeyo gudmar ama dulmarid inta hadda aan qaadanay ayaan dulmaraynaa oo kaliya okay chapter summary waxaan use the style attribute waxaad u isticmaalaysaa for styling inaad ku qaabaysid ku qurxisid html elementadiis ayaa ku qurxinaysaa sidoo kale inta use waxaa u isticmaalaysaa background color property-gan la yiraahdo background color for background color aa u isticmaalaysaa background-ga safxadda ama page-kaaga background-kiisa ayaad u isticmaalaysaa property-gaas sidoo kale inta use color waxaad u isticmaalaysaa for text color inaad ku midabeysid qoraalka sidoo kale inta use font family property-ga la yiraahdo font family waxaad u isticmaalaysaa for text fonts farta nooceeda sidoo kale inta use u isticmaal font size property-ga la yiraahdo font size for text size cabirka qoraalka yar iyo waaweyn wixii aad ka dhigaysid sidoo kale kan ugu dambeeya use text align property-ga la yiraahdo text align u isticmaal for text alignment inaad qoraalka aad si horizontal ah aad midig iyo bidix iyo centerka meesha aad rabtid aad u geysid habeenkii waqtiga inoo wada wacanaado casharka intaas inoogu egyahay waxaan rajeynayaa inuu ah si waadix ah oo muuqato oo talo iyo tusaale practically theoretically oo isku wada ahaa. Assalaamu calaykum.